Marka aynu isticmaalayno laptopska amba kombiyuutarada shakhsiga, marar badan waxa ayna soo wajahda xaalad adag oo ah in awaamirta aan siinay kombiyuutarka iyo inta uu kaga jawaabay ay u dhaxayso waqti aan dhibsanayno kuna dareemayno in kombiyuutarku culus yahay shaqadiisuna ay liidato. Arrintaa waxay ka dhalataa waxyaabo aad u badan oo caqabad ku noqday in si degdeg ah uu u shaqeeyo kombiyuutarku. Waxay noqon kartaa cilad farsamo oo dhanka softwareska ku jira kombiyuutarka ah, waxay noqon kartaa virus ku jira kombiyuutarkaaga, ama waxay noqon kartaa waxyaabo aan loo baahnayn oo soo galay kombiyuutarkaaga inta aad ku shaqaysanaysay. qaarkoodna loo baahnaa balse hadda laga maarmay, waxaana lagu magacaabaa caches. Waxyaabahaas waa kuwa ugu badan ee culayska ku keena kombiyuutarkaaga. Muuqaalkan waxaynu ku baranaynaa sida aan uga takhalusi lahayn waxyaabahaas si ammaan ah inagoo aan isticmaalaynin wax barnaamij ah. Qaabka ugu horeeya, waxaad soo furaysaa qaybta start buttonka kombiyuutarkaaga, waxaadna qaybta search ku qoraysaa run. Kadibna marka ay kuu soo baxdo, waxaad halka bannaan 2 jeer ku qoraysaa sumadda boqolleyda, waxaadna u dhaxaysiinaysaa ereyga term. Kadib waxaad taaban okay ama enter, waxaana kuu soo baxaya oo idil waa wax kombiyuutarka uusan u baahnayn, spaceka kombiyuutarkaagana buuxinaya. Kadib highlight garee, iskana delete dhammaantood. Hana ka baqin inay ku jiraan wax kombiyuutarkaagu uu u baahan yahay. Haddiiba ay ku jiraanna, isaga ayaan kaa yeeli doonin inaad delete gareyso. Tigta saar halka ay ku qoran tahay do this for all, kadibna waxaad dooranaysaa skip si uu uga tago midka uu u baahan yahay oo keliya. Qaabka labaad waa inaad samayso isla qaabkii hore balse spaceka run waxaad markaan ku qori doontaa private. Kadib sidii hore waad wada calaamadinaysaa dhammaan fayliska kuu soo baxay adoo taabanaya Ctrl+A, kadibna waad iska delete garaynaysaa. Habka saddexaad waa inaad qaybta searchka kombiyuutarkaaga ku qorto disk cleanup, kadibna tigta wada saar fayliska sanduuqa ka dambeeya dhammaantood, kadibna iska delete garee sidii aad hore u samaysay. Waa ay jiraan habab kale oo loo fududayn karo loogana saari karo kombiyuutarka xogta aan loo baahnayn, balse saddexda ayaan ku soo koobaynaa. Haddaad wax uun ka faa'iiday muuqaalkan, la wadaag dadka kale oo u baahan. Si aad u hesho muuqaalo kale oo caynkan ah, ha iloobin inaad nagu soo biirto dagaalkeena YouTube iyo Facebook ee Handab Academy. Mahadsanid.